بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على من لا نبي. waxaynu bilaabeynaa cashirka labaad chapterka koowaad fasalka form 4ka. cashirka labaad wuxuu leeyahay simple harmonic motion, dhaqaaq fudud oo wada jira. waa nooc saddexaad oo dhaqaaq aynu hadda aan arkayno. midkii hore wuxuu ahaa periodic motion, oscillatory motion. haddana waxaynu haynaa simple harmonic motion, dhaqaaq fudud oo wada jira. dhaqaaqa fudud oo wada jira asiguna sida oscillatory motion ko kale wuxuu sameynayaa wax loo yaqaano dhaqaaq ah back and forth. hore iyo gadaal dhaqaaq ah ayuu sameynayaa, dhaqaaq hore iyo gadaal ah ayuu sameynayaa. balse wuxuu kaga duwan yahay dhaqaaqa hore iyo gadaalka oscillatory motion ka uu sameynayay. wuxuu kaga duwan yahay midka kani ama dhaqaaqa kani waa dhaqaaq dhacaya path, straight path ayuu dhacayaa. wuxuu dhacayaa straight path, dhaba toosan ayuu ku dhacayaa. sidaas marka waxaa leenahay simple harmonic motion, dhaqaaq fudud ee wada jira oo loo soo gaabay SHM. this type of motion waa nooc ka mid ah socodka ama dhaqaaqa under the influence kaw saameyn ku leh of restoring force. restoring force-ga ayuu saameyn ku leeyahay. restoring force maxaa loo yaqaanaa? tusaale moolo aan waxaan ku xiray culays ama waan kala jiiday. markaan jiido awoodii aan u isticmaalay waxaa loo yaqaanaa applied force aa loo yaqaanaa. waa awoodaan u isticmaalay ama awoodii aan u adeegsaday sheygaas inaan ku jiido. markaan jiido oo haddana aan deeyo, mooladii waxay isu dayeysaa inay sideeda kusoo laabato. awoodii ay kusoo laabatay ay positionkeedii horan ay kaga gudubtay waxaa loo yaqaanaa restoring force loo yaqaanaa. restoring force loo yaqaanaa described by sida uu qeexayo ama described by sida lagu qeexay the Hooke's law, xeerka Hooke sida lagu qeexay. typical examples of repetitive motion, tusaalooyin qoseeya socodka noqnoqoshada of the human body ee jirka bini'aadamku are. repetitive motion-ka ama simple harmonic motion-ka oo laba tusaale ka siin rabaa. walxuhu caadigan tusaale ayuu ka siin rabaa oo kaga siinayaa. wuxuuna tusaale kaga siinayaa haddana in human body-na tusaale kaga siinayaa. human body-ga marka la rabo in repetitive motion kala tusaaleeyo ama repetitive-ka shayga u dhacaya in la tusaale kala rabo, waxaa kow ka ah heartbeat, garaaca wadnaha. breathing, neefsashada. garaaca wadnaha iyo neefsashadu labaduba waxay tusaale u yihiin simple harmonic motion-ka tusaale u yihiin. ilaan second walibo wadnaha ayuu garaacmaa, second walibo minute walibo wuu garaacmaa. waqti marka waxaad dareemaysaa garaacaas inuu yahay mid noqnoqosho ah oo haddana ugu soo noqnoqda waliba amin cayiman. breathing, neefsashadoo kale second waliba neefaad deysaa, neefaad qaadataa, neefaad deysaa, neefaad qaadataa. marka waxaad dareemaysaa marka in noqnoqosho ay jirto. many objects, shay'o fara badan ayaa move in u dhaqaaqaya repetitive way, hab noqnoqosho ayuu dhaqaaqaya, such as sida swing, weefoog, rocking chair, kuraasta looto kale, and clock pendulum iyo saacada. simple harmonic motion, dhaqaaqa fudud ee wada jira. whenever si walba haatee is acceleration karaarkiisi is proportional wuxuu saamigal leeyahay to its position, barti ayuu saamigal quma leeyahay. macnaheed displacement-iga ayuu saamigal quma leeyahay. and is oppositely directed wuxuu jihalid ku yahay to the displacement, bar u baxa from equilibrium marka laga imaado barta dheelitiranka. bar u baxuna wuxuu jiha cagsi ku yahay waa marka. examples, tusaalooyinka of simple harmonic motion, dhaqaaqa fudud ee wada jira. kow, simple pendulum-ka tusaale u ah lulashada fudud, mass spring system, swing, steel ball rolling in dish and carpet dish. steel ball kubad bereed rolling in carpet dish ee lagu riday saxan xoodan lagu riday. inta tusaale u yihiin
simple pendulum waa lulashada fudud oo cashirkii hore xogaan aan ku soo sheegnay mass spring system culays moolo qaab dhismeedkiisa ama qaab dhismeedka uu sameysmayo swing weefooga steel ball kubad bereed rolling in lagu riday carved dish saxan xoodan Hooke's law xeerka Hooke states that wuxuu carbaabayaa the restoring force awooda kaysan applied by loo isticmaalay spring moolada loo isticmaalay ama loo adeegsaday is proportional waxay saami gal la tahay to the displacement bar u baxa of the spring ee moolada and opposite in direction jiha ahaan waa tulid ku ah waa marka saadada qaacidadana soo bixis xisaab ahaan sana loo qoraa hadalkan dheer oo Hooke's law uu sheegayo hadal ahaan sana loo qorayaa restoring force marka waxa lagu helayaa